السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض إيدا وضيال ددوينا قيمة يقدرين تمضني هو ذي قد داونا يوكسر هذا برامج كذي مسكحني دريدة. halkan walaalayaal maanta waxa ila soo xilday gabadh Soomaaliyeed oo qurbayaasha ku nool. Gabadhaas walaalayaal waxa ila qaybsatay oo ii sheegtay waxay ka shaqayn jirtay meesha xanaanada carruurta ama daycare loo yaqaan. Marka waxay tahay maalmaha ka mid ah aniga oo galaas dhulkii aan ku jiro oo carruurtuna marka carruur yar bay hayday waan aad u waaweynay. waalidka mid ka mid ah oo nina ayaa soo galay. wuxuu wataabay inan yar u dhalay oo 2 sanadood jirto sidoo saas sinta ugu haya. anigu waxay tahay carruurihii kale ayaa kala fadhiisinaya quraacdii baan qaarsiinaya waan kala hagaajinaya. waxay tahay wuxuu inantii yar la taagnaadaba markii dambe wuxuu igu yiri waan daahsanahay oo shaqadii baan ka daahsanay inanta iga qabo. marka waxay tahay waan ku soo dhawaaday waxaan sidii inantii ka qaad. markii aan sidii inantii asaas kale ugu soo dhawaaday ninkii inuu inanta sida ii dhiibo yaa waxay tahay gacantii ugu dhiibay mooy gacantii kale waxay tahay naaskaygi intuu soo qaaday gacantiisi waa waxay tahay intaas oo dhan saas uu soo goostay naaskii oo dhan. waxay maalin jimcaha bay ahayd waxba maan odhanin bay tiri xafiiskii ma tegin waa iska aamusay waan baqday waan naxay. marka waxay tiri waxa dhacday marka gurigayga waa ku caraabay jimcihii sabtidii axad xanaanadu waa xidhan tahay. waxa i madoobaaday bay tiri marka uu farihiisa ku dhigmeen naaskaygii ayaa farihiisa ku dhigmeen sababtoo ay xoog ayuu ii qabtay naaska saas oo kale sidii wax u soo goynayo kale ii noqday. marka maxaan ku rahdaa ninkaygana uma sheegin bay tiri umana sheegin bay tiri maxaan ku rahdaayay meeshii dadkii mas'uulka ka ahaa xanaanada mas'uulka ka ahaa. marka arrintaas ay qabsatay bay tiri maxaan sameeyaa wiigii horaanay dhacday wiig baa ka soo wareegay. marka horeysa way mahadsantahay mar labaad horta deertani tala malaha sababtoo ay tahay waxay ahayd markii uu ninku sidaa naaska uu ku qabtay in aad tagto xafiiska aad tagto oo aad iska ribood geliso oo aad tiraahdo ninkani waxa isugu sameeyay ninka hebel la yiraahdo inaan reer hebel la yiraahdo dhalay sida ay saas ugu sameeyay inaad tiraahdo yahay oo aad laga qoro laakiin waad qarsatay hadaad qarsatay adigu ma jaranjaraatay marka jaranjarada la qoraayo oo meel la qabsanayay baad adigu ahayd ninku ku dhagayay maxaa kugu dhacay way ka hoostay iminkana maxaan ku idhaahdayay sababtay gurigaagii baad tagtay oo reer 3 casha ka soo wareegtay jimce sabti axad baa ka soo wareegtay isniintii baad damacday inaad maartay wax aad sheegto aad la hadasho macallimiinta iyo dadka kale meesha ka mas'uulka ah. waxay la tahay waa too late wixii gabadha lagula soo talinayo ha lagula soo taliyo laakiin arrimahaas oo kale haweenku markay ku dhacaan dumarka Soomaaliyeed oo markay arrimahaas ku dhacaan ha qarsanina isla markiiba xafiiska taga oo sheega maxaad la aaminsan tahay mar walba sharootada idinku dhajiyay haddaad wadankii joogteen iyo haddaad halka joogtaan meel walba ma idinkaga faa'iideysanayaan. aad iyo aad baad mahadsantahay daawaneyseen. haddaad igu cusub tahay subscribe soo biibilaysa haddii kale taabsaan insha Allah. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamu alaikum.